dhalinyaradan ayaa ka faa'iideysta tababaro waxbarasho iyo wacyigelin ay xarunta dhaqanka ee Tawakal u sameeyso dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi si ay uga fogaadaan isticmaalka maandooriyaha, burcadnimada iyo fikirka xagjirnimada. agaasimaha xarunta Tawakal Cabdifataax Xasan Sheekh ayaa sheegay in tababarka dhalinyarada ee ciyaaraha uu ka mid yahay howlo badan oo dhalinyarada looga baajinayo inay raacaan wadooyin qaldan isagoo safaaraddan uga mahadceliyay taageerada mashaariicdooda. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan soo booqano imaano safaarada Soomaaliya sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa safiirkeena Cali Bagadi oo ah qof aad iyo aad bulshada ugu naxariisto jecelna wanaaga iyo horumarka maanta barnaamijkeena wuxuu ahaa barnaamij ay noogu tala gashay safaarada oo inagu guddoonsiinaysay agab sports ah dhalinyarada ka yaryar muxuu ahaayay 16ka sidoo kale barnaamijyo badan ayaan qabanaa ay kala yihiin sida culture-ka kale fanka iyo suugaanta iyo waxbarashada intaasna waxaan ugu talagalnay inaan ku baraarujino dhalinyarada Soomaaliyeed muxuu ahaayay aan uga taxadirno inay ku biiraan gangs groupka inay tahriibaan iyo waxyaalo la mid ah. sihayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ahna qonsulka guud ee safaaradda Mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi oo deeqdan guddoonsiiyay dhalinyarada ayaa bogaadiyay xarunta dhaqanka ee Tawakal oo dhalinyaro badan u abuuraya hiwaayado ay ku mashquulaan si ay uga fogaadaan dambiyada iyo fikirka argagixisada. runtii maanta farxad ayay ii tahay inaan safaaradda Soomaaliya dhexdeeda aan kula kulanno dhalinyaro Soomaaliyeed oo da'doodu u dhaxayso 16 iyo wixii ka yar farxad ayay noo tahay arintan inay halkan ka dhacdo waxaan halkan ugu qeybinay dhalinyarada funaanada ay ku ciyaari lahaayeen iyo aqabkii kubadda ay ku ciyaari lahaayeen Tawakalna waxaan leenahay idinkuna aad ayaad u mahadsantihiin barnaamijkan danta laga leeyahay waxay tahay dhalinyarada inaan intay ku mashquul lahaayeen tahriib ay ku fikri lahaayeen ama drugs iyo waxyaalaha xun ay gali lahaayeen in dhalinyaradii iyo safaaradoodii dawladoodii la isku xiro waxay u baahan yihiin oo entertainment in loo sameeyo haddii naqan lahayd inay kubad ciyaaraan haddii naqan lahayd inay maartay hidaha dhaqanka ciyaaraha sidii loo bari lahaa naqan lahayd runtii barnaamijkan waan wadaynaa di ilaahay yiraahdo insha Allah taala intaan kaliya kuma ekaan doono. dhinaca kale midowga ardayda Soomaaliyeed ayaa sihayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ahna qonsulka safaaradda Mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi waxay guddoonsiiyeen shahaado sharaf iyagoo uga mahadceliyay taageerada joogtada ah ee ay safaaraddu la garab taagan tahay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalkan Kenya. Umar Cabdi Xasan, Umar Caaqil, SNTV, Nairobi.